guursaday yar kale oo guursaday oo mukiim mursado muuqaalka uu soo qarxinay waxayna qabo waa kala tageen waxa guursaday nin kale kii mataqaana sanbuxarkii oo xasuubka wiya oo mataqaana meesha dhakhtarka ilkaha laha waxyar uu qabo aragteen waa kala tageen nin kale oo habir gidira guursaday oo xeer lagu dhahay xeer ayana lagu dhahay mataqaana waxayna qabo asag dhowr bilood qabay oo mataqaana dhinaca erboorka waxa ka shaqeeyo waa furay Ilyas waa ninka shanaad gabadhan soddon ma gaar wallahi billahi tala laba shanaatan gabadhan ma gaar hada aaminaysi marka ninka soo guursanaysa xirbada ugu dhufnaa xirbada uurka waa xirbadii waxaan ku dhahay xirbad isugu wada uurka gabadha wax xasaas ka dhigaysa hadda iyaan ku dhashay habar weyn loo maleeyaa oo shaqada loo maleeyaa fi wallahi billahi tala ceebti fadiixada ay gabadhan ay samaysay ay ninkaas ku samaysay xayaaday maanta jimco waay hadaa rabto guurkaaga inuu ku hagaago ninkaas cafis weydiiso aabahana ninkaas ha waco gartan ha loo fidhiisto xaal iyo wax ka duu rabane ninkaas lagaga soo baxay mustaqaana ilaa ninkaas xayaad qisada xayaad iyo Ilyas ninka abgalka aydan gabar sacad waaye reer ayaan la wada taqaanin gabadhan walaalayaal waxa waaye gabar aan 20 iyo 34 hadda galaysa waana boqolkiiba xog confirm away gabadhan gabar weyn ma ahan marka gabadhan habar ka dhigay waxaan habar ka dhigay maxaa waaye gabadhan naagu soo danjiro u eg oo mataqaana iska barartay maxaa waaye walaalayaal gabadhan hooyada lu goysay hooyada mataqaana mustaqbalkeeda ku dhashay gabadhan waxa waaye hooyada aabeed waa kala tageen ayada wiil la dhashay mataqaana maamada waxa waaye mataqaana muqdisho joogtaa fahmo qaali allah habar aad u dhib badan waaye gabadhan ninkii shanaad hadda ninkan waxa waaye qoort u geliso waaye ninkan ninkii shanaad waaye marka qisada ugu xun habaarka meesha ku haysto hadda raba inaad jeey qisada gabadhan nina habaaray nin ku horeeyay oo nin weyn ah oo wadaad ah gabadhan habaaray oo Mareykanka joogo oo mataqaana dhaqaale fiican haysto oo guri hata rabin uu gado inuu wada rabay hata marka waxa waaye in arin farxun badan ay samaysay ayda hooyad maxkamadda ay ku ceebaysay ninkaas arba inaad in sheego habaarkaas uu maxkamad dadka joogo habaaro ku habaaray gabadhan ilaa hadda haysto 2020kii ayadoo la wada garsoor kulli ayadoo la joogo wuxuu yiri mataqaana anima waxaas kugu sameeyay oo ilaahay kugu ogyahay mataqaana rab inaan kugu sameeyo soo sameeyay dadka hortooda ilaahay waxaan kaaga bariyay adigana in guur khayr qab inaad weliga helin ilmo inaad weliga dhalin ilbaabkaas ka baxay wallahi billahi taala inaad bidi sheey gabadhan ilaa hadda inkaartaas haysato hooyadna hooyo naxariis badan hooyo naxariis lama hooyo aan bilaan naxariis waayo waxaan u dhahay gabadhan lacag ay fiirsataa marba sanadba loo dablo nin madax u gelisaa lacagtaas nimankaas laga qaadaa iska rabtaa maamada nin saruuro oo booliska waxaan ka shaqeeyay sarkaal boolis oo saruura qabo maamada marka ayada aabaheed wuxuu isku soo aaday sababta hadda Nairobi meerkaas uu dhacay waa inay shaahid Ilyas maxaa odayaasha waa diideen reer ayaa la gabadh inay bixiyaan waa diideen waxay anaga gabadha ma bixinayno saddex nin had kor nagu ceebaysay laba kalena dacwo inoogu imaaday shan nin dacwo inoogu imaaday marka anaga ceeb iyo fadeexa ma rabnay gabadhaada ninka rabto siiso adiga daarta bixiyeen wallahi billahi tala waa diideen xitaa walaalkay ayada la dhashay hataa wax waa diideen markaas mar dambe inuu gabadha bixiyo taas marka waxay keentay in hadda Nairobi soo aado oo odayga bixiyo odayga 20 sano ka hor xamar ka soo tagay naag kale Mareyxaan guusay ilmo dhalay saxarna Abu Joora la aabeed nin culus oo reer magaalo Beezana awaaye mataqaana waxa waa horta dhibkaas ay gabadhan haysto marka waxa way ninkaas saxadka reer ayaan la ninka ku horeeyay way 2019 2020 camal uu furay waxa guursaday yar kale oo guursaday oo mukiim mursado muuqaalka uu soo qarxinay waxayna qabo waa kala tageen waxa guursaday nin kale kii mataqaana sanbuxarkii oo xasuubka wiya oo mataqaana meesha dhakhtarka ilkaha laha waxyar uu qabo aragteen waa kala tageen nin kale oo habir gidira guursaday oo xeer lagu dhahay xeer ayana lagu dhahay mataqaana waxayna qabo asag dhowr bilood qabay oo mataqaana dhinaca erboorka waxa ka shaqeeyo waa furay Ilyas waa ninka shanaad gabadhan soddon ma gaar wallahi billahi tala laba shanaatan gabadhan ma gaar hada aaminaysi marka ninka soo guursanaysa xirbada ugu dhufnaa xirbada uurka walaalayaal gabdhihi hadda waa halaabeen ilaa ya hargeysa ilaa garow boosas kullu waxa gaar cudurkaas wada gaaray ilaa muqdisho dhan macnaha gabar kastaba waxaan ku dhahay nin oo xoolo haysto oo dhaqan waxa way marabta inay ilmo dhasho cirbada isku dhufanaysa wallahi billahi tala ina bidishay lacagtaas inay ka qaadato tirta wallahi cudurkaas magaalada soo galay gabdhii dhan waalay marka mataqaana waxa way gabadhan cirbadii waxaan ku dhahay cirbad isugu wada uurka gabadha wax xasaas ka dhigaysa hadda ilaa ku dhashay habar weyn loo maleeyaa oo shaqada loo maleeyaa fi wallahi billahi tala walaalayaal gabadhan waxa way Nairobi ayada Ilyas waxay u soo aadeen inuu bixiyo aabeed maadaama muqdisho odayaashii ay ka dhalatay saacadka reer ayaan la ay diideen gabadhan inay gabadhan bixiyaan anaga madam nagu maceebeynaysa gabadhan hadda intaan kalmad been ka sheego qof kasto reer ayaan la arinta waa ogyahay saacada oo muqdisho arinta ogyahay wallahi billahi tala qasadab away adeerow xayaada adeerow
waxaway aabaha ninkaas mareykanka jooga waa ninkaas hadduu faataxada ku soo marin qarash kasta xoolo kasta ninkaas asoona la siinin faataxada soo marin haddaan ku sheegaa guurkan guur qeyraysan ma noqonaayo adiga Ilyasna laba bil kadib waa kala tagaysan ana hadda ku sheegaa ilaa ninkaas faataxada soo maro nafsiga waa halis way nin weyn oo ilaahay xoolo sii oo ku hagar baxay oo intaas xoolo ka bixi oo meher fiican ku sii oo intaas dahab ku dhig wallahi waxa lagu leeyahay 13 kun la sheega oo dollar oo cash oo dahab ka bixi ninkaas odaga u jeed wallahi war waxaan ku dhahay ilaa 30 kun oo dollar ka baxay macnaha eelkeedi iyo haweenad iyo ayada bis 30 kun oo dollar ka baxay wallahi bil ana bish waxaan u balqaaday inuu guri u gadaa inuu Mareykanka u balqaaday ifur soo baqan Mareykanka wixii ifur war maxaan ku furaa waa imaaday maxkamadda la kortay ku furay oo dhaymut ila ninka xoolo badan ka baxay gabadhan gabar yar way hooyada ka dambayso maxkamadda sartay qisada dhab away waa habarka meesha ka socdo way wixii ninkan garsoorka wuxuu ninka muxuu ku furaa maxkamadda gelitay maxkamadda la koreen ninka asas wax kale u maleynay wixii ninkan waxa soo rubin uu sameeyo aan gabar muslim aan diintana ma ogolo ninka inuu furaa raba ninka waan maxay kaale ka imaarada ninka dadka eelkii meesha joogo maxkamadda la joogo ninka Mareykanka joogo oo saacadkeen عيبتي فضيحة قبلنا أي سميسي أي نكاس كوسا ميسي حياة ما أنت جمع واحد هدارت جور كايا إنه كوايا نكاس عفش ويديسو أباها نكاس هوعه قرتنا هلوف ديسو حالي واحد دور ربنا هل نكاس على جاك صوت ميسي إلا نكاس وتعال كوسا مرة حياة سنة آنسة أنا هذا كل شيء أنا محمد قريو إنك ما جنب ذلك هذيك المستقبل كان يوم ولا سنة رباح حياة بين تاني ها القصر كان دكان وقص لك واحد معناه مقصر مينيس وحاسة ميسي وقتها هويدا waxay sameeyeen oo ogtahay saacadka ka dhalatay ayaalana waxay sameeyeen waxay wad ogyihiin waa ogtahay ninkaas miskiinka dambiga ka gashay dadad waxay u qaadanayaan in maxkamadda ay ka dhahdo macna ninka iyo galmoodo iyo ninkan waxa weey ma tagin iyo waxaas dhan ma wax ka daran ee dhahdo ina hoos u sii dadega mar wallahi bil ina bidishay wax fool xun badan ee dhahdo oo ninka rabin uu sameeyo aniga gabadh muslim ay waa ka diiday qofkii aqliga waa dareemi kara waxaan ka wado arintaas oo taarin been abuur ah إنه فرو ربينه إنه فرو إيه ربينه وأنا فرو خبره قدره مرك خبر كاسة قبل أنا عايزه وحسن أبورنا يو أو منك الشمال مرة يسوع خبر كاسوي مرك وحواي أدارو هداربته خير هداربته ميكاز وحواي عفس ويديسو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته